kulan liinku hadalaya sida casriga oo walhaan saarada koranga beeroleyda kanool koonfur galbeed oo qaban qaabeen shirkado shale Seasad iyo Filsan oo kaaladayaan hay'adda geela iyo waliba geeka la ka gobaday gudo magaalada Tanbaydhabo kulanka iyo waliba ha ku qeyb galay wasiiro iyo mas'uuliyiin kale iyo bulshada beeroleyda oo kanool magaalada Baydhabo inkorentii waliba meelasay ku hadalaya Aamina Ismaan oo ku socodiya hay'adda geela dadka oo private sector ka la dhahay ama ganacsatada ah يعني markii la rabo in oo wax la joogteeyo oo sustainable ay noqdaan waxa laga maarmaana hadii la dhaho mashruuc yar maanta meesha laga fuliyo ceel yar la qodo waxa laga yaabaa bari hadii laga kala tago maintenance iyo wax inuu jirin laakiin geel waxa inta taas ay raacay nidaam waxay raacdaa intii ceel ah inta ka qodi lahaay oo community idinka la dhihi lahaay ee dayacmi lahaa qof business in lagu caawiyo mashiinadii iyo wixii oo u baahnaa ceelkii wax ku sameeyay in la siiyo isagana business ahaan dadka ula shaqeysto qiimihii wax ku heli lahaayeen lagu qasbo inuu ka yareeyo si oo wax oo ganacsi qof shakhsi leeyahay oo asi ku talagalay lahaanshihiisa iyo ilaalintiisa daryeelkiisa uu noqdo approach-kaas ama habkaas ee geel isticmaasha dhanaga kaleeda waliba meelasaya ay sharaha ku jeediyay mas'uuliyiinta shirkado Seasad iyo Filsan oo waaniyo sheegan walqabadka shirkadoosho iyo wala bulshadii oo qobadaayanga Filsan wali agta يقولوا قبضاسو فردانها هايتكس يانتك حقوق شيكين فلان إن شاء الله مركور وي فداي فلسن ميت فلسن شركة جناعسي أو برايفته كشجاياسة agriculture gudahaan activity agriculture كشجاياسة شركة ويلا أساسي سنة كون سجار لما تكون يتومي أفرتي يلا أساسي شركة وي هريل أما وذا الشقين إيه نون لتا SATG أما Somali Agriculture Technical Group أو NGO كشجايو لينو بيرو شركة ويس كلها دت أو دنايو سكتر كان إذن دنايو مدة بدنها دراسية أو دراسة بدن صوبين أو دراسين challenging كجرا سكتر كان يو فرصتها كجرا تانك جناح سيجا أو نيجان بيرو هيجي أسيك كمبني أهم وكمبني كان سيسد وكمبني هاي group of the companies أو سيسد group الله مركا حرنتا وقيبتا أنا هالكان نقولنا هاي قول كباي بيربو وقيبتي ورشدة لقيبتي وان صوب شوكر الله بطلع قال أدورنا يبيو وحيابه عقب كبيرة كمبني كان حالات عسيرة بكون شيء طبعا كي كمبني كان كمبني فول أو Soomaali ownership كذا Soomaali إسكال وحكى لكم الجرو خاصة waxaa iskala reer Southwest dadka deegaanka iskala qodobka labaad aan rabno waxay tahay company-gan wuxuu leeyahay team expert oo u shaqeeya oo professional u shaqeeya ama kuwa gudaha ahado ama kuwa dibadda ahado company-ga qayb kamid ah headquarters-kiisa waa Baydhabo xarunta inta badan cooperative-ka ku xiran Seasad way yaqaaniin labada xarumood Baydhabo ku taala company-gu wuxuu partner leeyahay hay'adda geel USA hay'ad oo cilmi baaris ah oo arrimahan abuurada nagala shaqeysa oo international ah oo igrisad laho oo wadamadan tropical-ka ka shaqeysa baskeedii ugu weynaa uu yahay Hindiya baskeedii Afrikana uu yahay Kenya iyo Nigeria iyo South Africa waayo qoladaas waxay cilmi baaris aad u dheer ku sameeyeen arrimaha masagada iyo digiraha iyo looska anagu warabno cilmigaas inaan soo minguurino aan ugu faa'iideeyno dadkeena sidoo kale waliba meelasay ku hadalay wasiirka ganacsiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Maxamed Cali wali hasaaran inuu suuq helno oo qof walba soo saaray sida hadda iskaashtooyinka la sameeyay ciidanka faraxay sababta iskaashtooyinka fursad waleeyayna nanka shakhsiga ee wala soo saaray inuu soo helo walaay dadku qaad laha inuu soo helo
iskaashatada nafsida markii oo helan dad oo shakhsi ay wal ku aruriyaan ama wala saaran iyo meel aan helan naftiyo hadan wali fursad aan helayaan inni heshiis caalami ama helan karan fursado kale oo walaal ka dhoofiyaan iyo marayaan systemkii dawladeed iyo certified kan la biyay hay'adaha hadda sida u weydiyaan company-gan CZ ku midiyay fursadu san heelay oo sax dalag badan hadda ilaa iyo 3 shay hadda in sheegan oo adduunyada in macnaa jeey koran iyo beecin oo shuruudii dhan dhameystireen si hadda ku muuqatana abuur kale iyo hawlo kale hadda ka muuqayin in rajeen waqti dhow iyo intii certified noqda kabacdi wali fursad la heli karo insha Allah inay fadaacadaas ama dalagaasi la hasaari inay suuqyo badan helo insha Allah anka dambeyntii waliba meelasay ku hadlay wasiirka wasaaradda beero dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Musdaf Axmed Iidow dowladnimada markay burburtay kadib wadankan waxaa ka talinayay team NGO iyo ganacsato u badan dadkii soo badbaadiyay ummadan oo meel fiican soo gaarsiiyay qayb ka ahaa runtii lama inkiri karo laakiin waayada dambe waxaa suuq ka sii baxay ama awoodooda ay si yaraatay NGO-yada sababta keentana waxay ahayd problemyo ka yimid dhinaca shacabka ay ku qabaan NGO-yada yaa waxay si yareysay mar walba awoodda NGO-ga waxaa soo xoogeysanayay private sector-ka ama ganacsatada mashruucan geel oo sida magaciisa ka muuqato growth enterprise employment livelihood saameyn inuu yahay oo maleenayo oo hay'adda USAID ay maalgeliso wuxuu ka mid yahay mashaariicda sida tooska ah u taageero private sector-ka ganacsatada oo la shaqeeya dawladda roolka dawladda mar walba banaanka oo iska yaala oo ganacsatada dawladda ama shaqeyn karto dawladdu ganacsatada ama shaqeyn karto laakiin wuxuu ka mid yahay mashaariicda miro dhalka ah oo la arkay waxtarkooda markii la baaray ilaa waxa markii ninka ganacsadaha lagu maalgeliyo energy markii lagu maalgeliyo muxuu ahay beer markii lagu maalgeliyo xoolo wixii oo soo saaro dadkii ku soo laabanayaan sustainability-gooda ama jiritaankoodana waa sii xoogeysanaa kulankan ya waliba muhiimadiisa ay tahay sidii beeraleyda ka nool Koonfur Galbeed iyo liin wada deersii lahay habka casriga oo waliin abuuradaw sawal hasaarowka lanka la tartama caalamka kaleeda